mid ka mid ah beelaha degan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa soo doortay manaaq guud yeelanayaan mid ka mid ah beelahaasi waxa warbixinta noo haya wariye Abshir Mandela beeshan oo ka mid ah beelaha degan gobolada Soomaaliya iyo waliba wadamada Kenya Ethiopia ayaa maanta munaasabad lagu caleemisaarayay isla markaana lagu shaacinayay malaaqa guud ay yeelatay beesha Leysan ayaa waxa ay ka dhacday magaalada Baydhabo xarunta dawlad goboleedka Koonfur Galbeed xafladan caleemisaarka malaaqa cusub ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan ugaasyo suldaano uqaal nabadoono culmaa u diin haween iyo waliba boqolaal dadweyne oo ka kala yimid deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana intii munaasabadu ay socotay halkaasi lagu soo bandhigay habdhaqanka Soomaaliyeed sida hidaha iyo dhaqanka iyo suugaanta waxaana munaasabada ka hadlay odayaal dhaqameedyo culmaa u diin siyaasiyiin haween iyo dhalinyaro oo u mahadceliyay hogaamiyaha cusub uguna duceeyay in xilka alle la fududeeyo bay kala singlaqaadni unoon digli mirfladiyaan haddii digli mirfladiyaan singlaqaadni sinna tareen bare i orsi i binaani lankada sinsan singlaqaadna igaa doonaa كيف قلنا متشرفته الامثال وجواز جود بالي كيف قلنا مادي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلام ملاك شو يلا ري ملاك شو اسوس كويله قوم مهدين ملاك شو مو كويله دان هدنا ملاك دغلي مرفليا كويله دايان سوق وير يوم وير دايان يوم ملاك شو كويله ده وأنا بالله كسوس كويله ملاك جود أو بالله يسامد كي أو جول لنا إلهي كديك Soomaali wala soo biyaasa aan ihaano kasii badan leeyahay ama kasii yar leeyahay malaag oo bileera labasiyaan qaaday dadka ma ileen hatta dada way suubsaday lamada beer samadooni ha soo biyaan oo hoosa ka dhisadeen sida beelo oo koogan door marata kala geeb galnay oo samadoonada inisku ay amay dooradeen markuu malaajo guud dooradeen saana dareemay oo am magaalada Landikay may guud igaarhan bantaa yarana insha Allah malaaga guud oo beelaysa mid aqoonsadaan oo gaarhan aqoonsadaan beelaysa madantiya malaag guud yeelata wabillahi tawfiiq assalamu alaykum ugu dambeyntii malaaqa cusub Maxamed Cabdu Maxamed ayaa khudbad dheer halkaasi ka soo jeediyay isagoo ugu horeyn u mahadceliyay ka soo qaybgalayaasha munaasabada wuxuuna sidoo kale hogaamiyaasha dhaqanka u ballan qaaday in uu wada shaqayn la sameyn doono lana adkeyn doono wada noolaanshaha beelaha dega gobolada dalka Soomaaliya أنا ملاك دي مرفليها مئي ملاك بالي دورة الشريدي مئي وان هران هاي وان هتنا نقض الدون هو إلهي تنكرا لانك الشريس من الشقاي كورا وليل الفلاي انتلي إلي الشقاي دقلي مرفلاك إلي الشقاي aaneen in midaysan meelan roga iyo kala midaysan digale marfleeda duubis buu jeehay habsiyaha ku dhiyay gaar ahaan marfle oros galo amuusho ka koyto habsi ka jaro lanka ku taladaay misla weeray meelan roga maskafaan yawtaas taasasin ka dare ma sintin inta shirkuwa ku qeyb galay إلهي وين وهذا الكلي لقاضي وقت الصوم لك جرى إلهي نفضل مرتيدة إلهي مهدلة مرتول سنة كويتي دتكسو منو أنتان يريدين هرقلو هاي أونا أنت نسك كوي أو سمركو موجوهاي ما سنتين ملاقع عصب محمد عدو محمد أيان نقضي هقامية رقمات كدمركي beesha uu ka dhashay ka soo xulatay gudaheeda una dooratay in uu noqdo malaaqa guud ee beesha Leysan kadib markii ay u gashay baadi goob dheer oo 4 sano qaatay malaaq Maxamed Cabdu ayaa waxa uu bedelayaa Allah u naxariista malaaq Muqtaar Malaaq Xasan oo 2012 ku geeriyooday magaalada Baydhabo muddo 50 sano ka badanna uu hayay hoggaanka beeshaasi Abshir Maxamed Nuur Mandela Kalsan TV
baydhabo